war halow waa kuma war nafar hay'adii oo Hargeysa joogay soo ninkii Muuse Ismaaciil maahe cirgaba joogay war may maqli si wacan war hay'adu waa tii markaa ma UNICEF bakeer ba hay'adu waa ninkii Muuse Ismaaciil cirgaba joogay war ma keer maahe waa nafar hay'adii waxa weeye waa nafar habar jecel oo Hargeysa joogay bari warrami gaar may maqli si wacan war waa gartay waa hay'adii reerka ahayd waa nafar habar jecel war nimcaanu ku jiray hadaan nahay guud ahaanba gobolka Sanaag 4 beeloodba airport kiina waa noo furo dayuuradu waa noo timaada dekadiina waa noo furaya madaxweynaha waa noo yimi dahabkiina waa gurana waxaan ku jiraa 40 sano barwaaqo soorankan ku jiraa 40 sano barwaaqo sooranka inkastoo shaarka dawladdu naga yara jecjaxayeen hadana alxamdulillaah haye ablaad igu waram xaati dekadiina waa noo furaya dayuuradiina waa noo timaada airportka waa noo furay dahabkana waa isa gurana waxaan ku jiraa guud ahaanba gobolka Sanaag 40 sano barwaaqo sooranka war waa la mahadiye bal ka waran de presidentiga iyo waftigii ballaadhnaa uu hogaaminayay ee Muuse Roble hawada sare ahaa iyo bal sida loo soo dhaweeyay iyo macaasiiriga macalsiigada macalsacabka waa bal isu kay raaciyo balaad igu waran aad may maqli suucan de si fiican baa loo soo dhaweeyay madaxweynaha sacabkana waa loo garaacay siirigana waa loo tumay oo Soomaaliland iyo Sanaagba waxay doonaysana waa loo sheegay si wacan waa loo soo dhaweeyo shacabka iyo ciidamada Blayska iyo militariga iyo ciidamada qalabka sida iyo kuwaan sidinba iyo shacabku waa isdhex qaadayeen de Sanaag waa gobol dimuqraadi weeye inaad argacaliye deere ma hirdiin waxa weeyaan soo dhaweynta iyo siiriga waxa weeyaan sheegitaanka Soomaaliland waxay rabto iyo shacabka iyo kalgacalku waa wada socdeen de inaad argacaliyo gobol dimuqraadi weeye gobolka Sanaag war shacabka gartay siirigu markuu dhacayay inuu wax seenyaaleen iyo ifisa iyo wax miyay dhacaysay war maya niyo maya xataa rash baan dhicin ma garanay rash baan xataa dhicin war saasaan ku wada gobolka Sanaag waa gobolkii xadaarada gobolkii awooyaasha weeye war waxa ku kuwii siiriga bawdiyaha waxay kaga taalamaya la arkay bawdiyaha may maqlay si wacan war maya bawdiye iyo baritoona waxay kaga taalamay la arkay rash ma dhicin rash ma garanay agaha waxay kaga taalo kuwii siiriga garaacaya wax dhutinaya inna wax dhutinaya miyaad ku aragtay magaalada maanta ilaa cirgaawo kuwii siiriga garaacay inna wax laan gareenayo iyaga may maqli si wacan war adeer gacaya waxaas waa ceeb ma jirin waxay lugta kaga taalay iyo waxay farta kaga dhacday iyo waxay dhegta kaga dhacday iyo wax dhutinaya iyo kuwii siiriga garaacay iyo kuwii sacabka garaacayba isku saf bay taagnaayeen iyo ciidamada qalabka sida iyo kuwaan sidinba gobolkan adeer gacaya waa gobol dimuqraadi weeye madaxweynaha sacabka waa loo garaacay siiriga waa loo tabay war waan gartay xagga laadka ka waran isaga xagga laadka salmiga kuwii siiriga garaacay inna wax loo yara qarinayo meedarkiisi ama sida loogu yara fiiqayo inna wax laada iyaga ma jireen war haba sheeginiyo laad iyo feertoon alla yaa cisiga wariyada gobolka Sanaag waa dimuqraadi waa yahay iyaga xagga tontoomada iyo feer jilibka iyo inna meedarkiisi wax noocaas qaybta siiriga meedarkiisi wax la dhacayo feer jilib iyo titoomo iyo mid wax noocaas iyo suxul iyo wax loo yara qarinayo war adeer gacaliya may maqli suucan hana wareerin adeer waxaasi kama jiraan halkan waxaan madaxweynaha si sharaf leh loo soo dhaweeyay iyo waftigiisii wax weeye mashaariicna xarigu ka jaraya fara badan oo dekadii kama tahay de wax weeye nimankii Muuse Ismaaciil iyo gabahaanba gobolka Sanaag waxa doonayaan inuu yaban ku soo jabarayno intaanu biriishka dheer may raacno halka ticiisi ka galo ticiisi alla yaa cisiga warda gobolkan waa gobolkii xadaarada dimuqraadiyadda la sheegaaba gobolka Sanaag bay taala mar haddii ciidamadii qalabka siday iyo kuwaan sidin iyo shacabkii iyo kuwii siiriga iyo kuwii shacabka iyo kuwii siigadu waa isdhex qaadayeen oo aanay deera hirdiin oo wax dhutinayo la arag waxay bawdiyaha kaga taala la arag oo wax feerjilib iyo sabaaxad loo qarinayo la arag oo inna aan wax tatooba la arag war ma jiraan waxaas war waa si wanaagsan fahmay niyo waxaan kala ku weydiiyay inna qaybta siiriga inna wax uu si dabadeeda uu si shacabka miyaa loo shiday inna wax uu si dabadeeda wax gaas maaska iyo wax noocaas iyo xagal uu si dabadeedka inna wax loo shiday meedarkiisi malaha isaga waariyana waa maya niyo iyana waa maya uu si dabadeed iyo uu si gudeed toona lama shidin iyo gaas maas iyo wax laafufay toona wax hindhisaya iyo wax sanboor ku kacay iyo wax ma garanaysa wajiga masaxanayo wax midna lama aragniyo wax weeye si wanaagsan oo nabadgeliya oo degan oo qurux badan bay u dhacay soo dhaweyntii madaxweynaha siiriga baniyo war gartay waxaan kala ku weydiiyay sixirka siirigu imsu marayay waxaan maqlay sixirkii siiriga aad buu qaali garoobay gobolka Sanaag iyo degmada Ceergabo dhane bal sixirka qiimihiisa isaga wax ka taataabay imsu marayay seeladaha siiriga gobolka Sanaag imsa lagu kala iibsanay may maqlay suucan waxa weeye seeladaha sixirka siiriga gobolka Sanaag xabada siiriga waxay ka maraysay saaka
8 kun oo lacagta shilin Soomaaliland marka aad buu ka xayay sixirka siirigu waa kacay waxa weeye macda iyo xabada siiriga isnaag isku lacag bay hadniyo maanta isku lacag war waxaan ku dhigniyo tanaanu joogno sixirka siirigu uu kacayno Soomaaliland dhan buu ka jiraa sixir baroorka siirigu ar waxaan ku weydiiyay basambuurti sacabka iyo siiriga ma garaacayeen sacabka iyo siiriga oo soo dhaweynta madaxweynaha iyo waxay Soomaaliland doonaysaa ma sheegayeen basambuurti war may maqlay war maxaanu ku maqlay weynaniyo may maqlay badala maanta haysaa hargeysa ma ateenkii baa laga gooyay maqashay war waanu ku maqlaynaaye basambuurti iyagu siiriga ma ridayeen saaka iyo sacabkaba may maqlay suucan waa ku maqlaya war waa ridayeen basambuurti waa ridayeen siiriga waa ridayeen basambuurti waa sacabka iyo siiriga waa la wada riday reer Sanaag oo dhan war waxaan ku waa si wanaagsan oo duruxmeenkii ka waran iyaga oo duruxmeenku labadaba soo may ridayn sacabka iyo siiriga si wacan waa reer Sanaag saaka de sacabkana gacmaha ka garaacayeen afkana siiribay ka ridayeen oo duruxmeenkina waa ridayeen iyagu waa riday gudaha reer Sanaag waa riday sacabka iyo siiriga baniyo war adiga laftaadu may maqlayniyo adiga laftaadu si wacan waxaan ku reen ka waran Muuse Ismaaciilkii Muuse Arrihiyo iyaguna soo gacmaha la sacabka bay garaacayeen afkana siiriga bay tuuray saaka war si wacan iyo Muuse Ismaaciilkii iyo Muuse Arrihiyo baniyo madaxweynihii gobolka Sanaag Ismaaciil Xaaji Nuur baadee adeer sacabka iyo siiriga maamulayay oo madaxweynaha airportka ka hortagay soo dhaweeyay siiriyadana dadka de magarasa markaas siiriga iyo sacabka yaa hadalku ku daalile madaxweynaha gobolka Sanaag Ismaaciil baa maamulayay xagga ugaaryahanka ka war xagga ugaaryahanka daraawishti bal ka war hada soo durbaanka iyo siiriga iyo sacabka iyo siigadaba isku way qasayn iyo soo dhaweynta iyo wax sheegaba adeer horta may maqlay suucan waxa weeye daraawishta lafteedu ugaaryahankii waa ridayeen sacabka iyo siiriga iyo soo dhaweynta iyo siigadaba iyo waxa weeye si wanaagsan looma kala harin soo dhaweynta madaxweynaha si qurux badan waxba loogu sheegay deere ma hirdiin waxa weeye waa gobolka Sanaag waa dimuqraadi haye iyaga ka waran xagga warsangaliga sandaladii ka waran xagga sunduladii warsangaligu iyagu sacabka iyo siiriga bal ka waran iyaga waradeer may maqlay suucan waxa weeye iyaga warsangaliga waxa loo magacaabay Axmed Kala Raro oo waxa weeye golaha guurtooda ay soo baas garaysay nin weyn oo warsangaliya dhanna waa ka shirayeen waxa weeye iyagu xagga sacabka iyo soo dhaweynta waxa weeye wax siiriya ma arkeen wax riday wax warsangaliya sidii Axmed Kala Raro loogu magacaabay ma arkeen wax siiriday Allah hayaay warda sandaladu waa sandaladun Axmed Kala Raro waxa weeye waa nin shan qodob koobsado waa Axmed Kala Raro xubinta commission waa nin la isku raacay weeye de warsangaligu waxyaabo badan way kala hadlayaan baresandigo waxa weeyaan waa sandalad weeye war waan gartay Allah ya ciisaga waralka ka wada hawsha war alxamdulillah 40 sano barwaaqo soorankan ku jiraa waxa weeye madaxweynaha gobolka Sanaag Ismaaciil Xaaji Nuur baa sacabka iyo siiriga maamulayay de waa nin siyaasi waxa weeye way araga weeyaan oo gaamuray waxa weeye wax ma wala tayniyo marka 40 sano barwaaqo sooranka ayuu ku jiraa gobolka Sanaag guud ahaan iyo dahabkii dekadaha iyo garoona war si wanaagsan baa samaysay waxa weeye ciidamada qalabka sida gobolka Sanaagna similar hawfran ciidamada Soomaaliland Muuse Ismaaciil kuna similar hawfran Muuse Cabdullah waxa weeye madaxweynaha loo sheego oo heer cergaba ha ugu dhaarsan inaan mudaharaadku waxba xumayn ee mudaharaadka wanaag isna socon karo war may maqlay suucan war madaxweynaha waa ugu dhaaranay in mudaharaadka iyo wanaag way isna socon karaan mudaharaadka waxba yeelin ciidamaduna ee similar hawfran ciidamada Soomaaliland oo inaan ciidamada shacabka iyagoo mudaharaad ay dhinac socon karaan oo la shaqeyn karaan amniga sii karaan oo sheegina seminaarka waa qabanayna ma garanay hawshana si wacan bay u soconaysaa madaxweynaha uu sheegay mudaharaadka waxa weeyaan de siyaasi weyn baa haysta magaalada Ceergaabo Ismaaciil Cumar Gelaha Soomaaliland Ismaaciil Xaaji Nuur niyow ayoy wariya Ismaaciil Xaaji Nuur madaxweynaha gobolka Sanaag waa siyaasi gaamuray sacabka iyo siirigaba uu qaybiyaan ku deere ma hirdiin guud ahaanba beesha garxajis ha isu dhibto Muuse Ismaaciil ha isu dhibto guud ahaan beesha garxajis wariya Ismaaciil Xaaji Nuur ha isu dhibto waa nin siyaasi weey deere ma hirdiin sacabka iyo siirigaba isaga qaybiyay wariya Cumar Carte Qaali baa laga hayay dhamaanba ciidamada jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliyeed ee qalabka sida ay isu dhibaan ciidamada Islam imika waxa leeyahay dhamaan beesha garxajis ay isu dhibtay Ismaaciil Xaaji Nuur niyow waa siyaasi gaamuray siiriga sacabka way isaga qaybiyay hadana deere ma hirdiin wax ku xataa cid uu si loo sheegay waraad baan ku salaamayaa baan kaga qaday soo dhaweyn iyo sacab iyo siiri qiimo waa ka dhacay wariya Allah yoy bari muxuu ka wadaa beesha garxajis ay isu dhibtay Muuse Ismaaciil Xaaji Nuur niyow muxuu ka wadaa warda Ismaaciil Xaaji Nuur waa siyaasi warda niyow Muuse Ismaaciil ku seminaar ha u qabtaan Muuse Cabdullah seminaar ha u qabtaan markuu ku leeyahay beesha garxajis ay isu dhibtay Ismaaciil Xaaji Nuur waa runtii waa siyaasi weeyaan deere ma hirdiin siiriga isaga qaybiyay sacabka wasaak soo dhaweyntii siigadaba wadi hadana deere ma hirdiin waa runtii ninkaas markaa sheegay no Cumar Carte Qaali baa la wuxuu yiri dhamaanba ciidamada qalabka sida ay isu dhibaan dhaqaaqa Islam war maxaa tiri war waa Ismaaciil Xaaji Nuur waa siyaasi weey waa siyaasi buura gobolkiisa nabadgelyo ciidamada iyo waxa isdhex qaadayay shacabka siiriga iyo kuwa shacabka ridaya iyo militariga
iyo macal dharcadu deere deere meherdi